waxaan aaminsanahay maantay inkastoo ay dhib tahay in dadkoo dhan laga dhaadhacsiiyo inay maalin weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed. sanad ka hor iyo xoogaa markii aan shaqada bilownay waxaa dhibaato noqotay inaan ku qancino dadka Soomaaliyeed ajendaha ugu weyn ee dawladdu yeelanayso waxa ay tahay inaan ka shaqeyno arrimaha dhaqaalaha, inaan ka shaqeyno in deynta mustaqbalkana la ka cafiyo, inaan ka shaqeyno nidaam daahfuran oo isla xisaabtana, inaan ka shaqeyno inaan aqbalno meel musuqmaasuq ka jiro inaan horumar aan yeelanayn. sanad iyo bar kadib waxaan aaminsanahay tusaale inay tahay shaqada maantay halkan ka socota inay tahay annaga keliya ma ahan laakiin aqoon-yahanadii halkan ka hadlay iyaga laftooda maanta inay arkaan tallaabooyinkii aan qaadnay sanad iyo bar ka hor inay yihiin inaan rabno inaan ummadda Soomaaliyeed ee naga dambaysa aan wax uga tagno, inaan dhisno dal ka duwan kii hore. dhisidda golaha dhaqaalaha qaranka ma aha keliya inaan rabno inaan dhaqaalaha wax ka qabanno, ma aha inaan dalkeenna horumarino, waxa ay tahay inaan aqbalnay in nagala shaqeeyo dalka inaan wax ka qabanno, waxay tahay inaan aqbalnay inaan buugaagteenna furno, waxay tahay inaan aqbalnay in nalala fiiriyo haddii laalaab iyo qayaana jirto in wax laga qabto, waxay tahay inaan aqbalnay maadaama aan rabno inaan dunida dib u lalfagalno in aan aqbalno dadka aqoonta u leh inay noo yimaadaan ay nagala shaqeeyaan, waxay tahay inaan aqbalnay caqabadda ugu weyn oo hortaagan dal in la bedelo inay tahay inay siyaasiyiintu aqbalaan in la bedelo. anaana maanta idin ballan qaadaya inaan diyaar u nahay in wax laga qabto. waxaan ku faraxsanahay maantay inaan halkan isugu nimid si aan u aragno waxaan hore loo arki jiray, si aan u aragno mustaqbal carruurteenna ay ugu noolan karaan, in dalkeenna uu meel wanaagsan ku yaallo, in dadkeenna ay yihiin dad shaqeeya, in adduunyada kale dadkooda ay duqoobayaan kuweennuna ay dhallinyaro yihiin, in meel walba oo aad dalkeenna ka fiiriso ama kalluun ama beer ama shidaal ama gaas ama meesha aan ku naalno ay tahay fursad dhaqaale. waa wax la wada ogyahay, waa wax qof walba oo Soomaaliya ka hadli karo. waxa aan laga hadli karin waxay ahayd sidee baa looga faa'iidaystaa. tallaabadii ugu horreysay waxay tahay meesha maanta aan fadhino. waxaan u yeeranay dadkii ehelka u ahaa inay nagala taliyaan sidaan uga faa'iidaysan lahayn aqoontaas ama khayraadkaas aan leenahay. dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya iyo kuwa halkan fadhiya marka waxaan rabaa inaan mid u sheego, waagii hore haddii uu ra'iisul wasaaruhu idinla hadli jiray waa laga soo gudbay arrinkaas. maantay waxaan aqbalnay nidaam ku dhisan daahfurnaan. maanta waxaan isu keennay rag iyo Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn oo aan rabno inay nala taliyaan, wax nala hagaajiyaan, laakiin ceebteennana ay noo sheegaan. maanta waxaan aqbalnay inaan marno xanuunkii ay khasabka ahayd in la maro si kuwa naga dambeeya ay ugu noolaadaan nolol ka fiican nolosheenna. maanta marka waxaa soo dhammaanaysa marka ragga halkan isugu yimid oo aqoonta leh oo aan garanayn qabiil iyo xildhibaan iyo wasiir iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare, laakiin garanaya nambarro lagu qoro warqad, annaguna aan ku khasbannahay nambarradaas warqadda lagu qoray inaan u fulino sida ay tahay. maanta waxaan rabaa marka inaad iska ilowdaan Soomaaliyada hore aan soo maamuli jirnay. dhaqaalaha dalka maanta waxaa u bilowday nidaam cusub oo ah Soomaaliya cusub oo ku salaysan qaabka dunidu ay u dhaqanto, qaabka dunidu ay u shaqayso. ragga halkan yimid ee nala shaqeynaya
waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan ognahay in nidaamkeennu uu dumay waxaan rabaa inaad ogaataan inaan u jeedno waxa u jeedaan waliba aan ognahay geedaha annagu hadda aan talaalno inaanan annagu harsan doonin laakiin waxaan aaminsanahay inay waajib nagu tahay inaan geedahaas u talaalno carruurta aan aabbaha iyo hooyada u nahay iyo kuwa ay sii dhali doonaan aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa talooyinka aad keentaan oo aan aaminsanahay inay noqon doonaan talooyin u wanaagsan dalka inaan ku shaqayn doono qaadan doonaa sababta aan idinkugu yeeranay oo aan u aqbalnay inaad wax nala qabataan waxay tahay inaan aqbalnay inaan ogolnahay in wax nala qabto inaan u baahannahay ugu dambayntii halkan waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo dhibaato ku habsatay ku dhawaad 30 sano dhibaatada ku habsatay awgeed ayaa nolol aan caadi ahayn waxay u noqotay caadi waxaan la aqbali karin ay la qabsadeen inay aqbalaan waxaan dhaqan u ahayn ayaa u noqday dhaqan dhibaatada ugu weyn oo haysatana ma ahan kaliya in siyaasadeennu xun tahay ama amnigeennu liito ama saraheennu dumeen saraha naga dumay waxaa la dumay qayb dhexdeena ka mid ah waxa ugu badanna waxay tahay inaan gacanta horsanno si marka loo dhiso qabkii iyo qarannimada Soomaaliyeed waa inaan ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaa sidii ay tuugsiga isaga deyn lahaayeen waa inaan isku filnaanaa si aan anagu isugu filnaano marka waxaan soo dhaweynaynaa gacan walba oo nala riixi karta gaariga shidaalku ka dhamaaday oo aan darawalka lahayn oo aan gadaal ka riixayno oo culays ka noqday laakiin shaagiisu uu bilaabay inuu wareego balse u baahan in la sii riixo waxaa kaloo rabnaa inaad nagala shaqaysaan adduunyadu inaanay nagula dhaqmin Soomaaliyadii la soo dhaafay ama Soomaaliyada maanta laakiin inay nagula dhaqanto waxa aan noqon karno iyo waxa hortiina ka muuqda idinka ma aha waxaan ahaan jirnay ama dhibka aan soo marnay in la ku sifeeyo sidii aan ahaan jirnay ku dhawaad 30 sano inaan bedelno ayaan rabnaa inaad nagala shaqaysaan marka haddii adduunyada shuruudaha ay dalalka ku xirtay ay tahay inay daahfurnaan sameeyaan inay musuqmaasuq iska dhaafaan in qofka khalad gala ama musuqmaasuq gala oo la soo cadeyn kara xabsi la soo dhigo in xoolaha wadanka loo qaybsado si cadaalad ah daacad ah daahfuran dawladda madaxweyne Farmaajo hogaamiye aniguna aan ra'iisul wasaaraha ka ahay diyaar ayay u tahay waxaan rajaynayaa in caawinaadda aad noo fudin doontaan ay ku ridi doonto Soomaaliya mustaqbalka aan la rabno dawladdu waa inay hadaf leedahay annagu waxaan leenahay hadaf siyaasadeed oo fog oo aad akhrisan doontaan ama ha ahaado kan siyaasadda waxa aan dadka la rabno oo awoodda in shacabka Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo oo aan dastuur leenahay la isku wada aamini karo oo aan cadaalad leenahay la wada aqbali karo oo shacabka Soomaaliyeed iyagu ay wax doortaan oo qabyaaladda asxaab looga gudbo arrimaha dhaqaalaha idinka iga garanaya arrimaha amnigana sidaas oo kale arrimaha adeega bulshadana sidaas oo kale shacab Soomaaliyeed oo awoodda loo celiyay rag iyo dumar Soomaaliyeed oo qof walba xuquuqdiisa helay dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo sameeyay mustaqbal ka duwan kan anagu aan soo marnay iyo dal Soomaaliyeed oo go'aanka hadda aan u gaarayno aanu dhibaateyn dadkiisa bari
sababta marka aan idinkugu yeeranay waxay tahay inaanan u qaadin dadkeenna go'aano dhaqaale oo aanan annagu garanayn ma rabno inaan noqonno dalal diime intay iska qaateen maanta dhibaataysan